السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dalka iyo dibadda. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaa ka bacdi waxaan leeyahay ilaahay ummadda intii ilaahay wixii dhintay ha naxariisto, intii dhimatay ilaahay ha naxariisto, inta bogtana ilaahay shafeeyo, inta caafimaad qabtana ilaahay caafimaadka ha daayo. maxay ahaydeen ilaahay masiibooyinka ka kor qaado ummadda Soomaaliyeed ha ka dulqaado oo ilaahay xaqa ha tuso. ilaahay ha ka dhigo kuwa xaqa isugu heliya aan xaq darrada isugu helin. intaa ka bacdi intii dhimatay ilaahay u naxariisto, inagana ilaahay naga daba naxariisto. waxaan ka hadlayaa arrimaha Jabuuti ka socda. arrimahan Jabuuti ka socda waa ka weyn yihiin guur waxa la kala guursanaya wax ka weyn weeyaan, way ka weyn tahay. واحد من wadamo meeshan dawladda lagu dhisay saddexda wadamo kala metelaya isugu yimid meesha saddex oday oo midba meel xukumo way isugu yimid. markaas ujeedada arrinkaas oo watoodayahan Jabuuti jooga oo la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geelle oo ka shaqeeya mu'amaraadka ummadda Soomaaliyeed iyo burburinta dawladnimada Soomaaliya ka shaqeeya iyo maxay ahaydeen xumaanta Soomaaliya. waxaan leeyahay marka arrintu guur waa ka weyn tahay. timir lafka ku jirta ujeeddo kale meesha ka socota. ujeeddadaas ha ahaato mu'amarad loo dhigay Somaliland ama ha ahaato mu'amarad loo dhigay maxay ahayd Soomaaliya, meeshan waxba ku jira. xasan sheekhna waa dabeerdhaan raacday wax la iska wato marba dhankii la doona loo jeediyaa. wuxuu dalkiisii dadkiisa ugu maqan yahay ma jirto. dalkiisii iyo dadkiisii waa dayacan oo kala daadsan aan wax war hayaa jirin, wax war u hayaanay jirin. waa soo galaayo ka baxaa, waa soo galaayo duulaa. marka waxaan leeyahay arrin Soomaaliya ilaahay baa maqan Soomaaliya. dadkii wanaagsanaa meel gaarsiin karayeen wataa loo diiday oo dulmi iyo xumaan la isku raacay. waxaan leeyahay xaq wada dilaaci doona insha Allah bismillaahi kariim. intaa ka bacdi waxaan leeyahay gabadhan la leeyahay gabadh baa la meherinayo musabix baa gabadh meheerinaya. maxay tahay baahida keentay musabix inuu uga soo duulo gabadh meherkeed aan shaqaba ku lahayn? meeshan mu'aamarad baa ku jirta. musabix abtirmana maaha, abti labaadna maaha. duruuf loogu baahdayna ma jirto, duruuf keentay ma jirto. haddii gabadhii la waayo wax meeriya laga yaabo deen la oran lahaa abtigeed qof abtigeed hala doonaa. anigu abtigiisa ugu yahay isagu ma baqaani ah sidoo abtigiisa kolay walaasheedna maaha islaanta gabadha dhashay, adeerkeedna maaha adeerkeed rumana maaha arkaan. waayo isku inayo ma aha. marka ujeedada laga leeyahay waynu garan waa si wax dib lagu ogaan doono. adduunyada imika wax maqan Soomaan halkaa mu'aamarad baa lagu dejinayaa. mu'aamaradaas nooc doonto cidday doonto ha loo dhigo. dad baa xilliin daarood wax loo dhigaya, dadkaan wax loo dhigaya. daarood waa ku halka soo gaarsiiyey Ismaaciil Cumar Geelle. mu'aamaradii wuxuu walaaqona wuxuu ku yeeli karaa iska yar. ummado dhan oo ilaahay abuurtay meel kastaba jooga cid wax yeeli karta ma jirto. ilaahay hood bay hoos joogaan. isaguna waa qof ilaahay baa leh, waa shakhsi bini'aadan oo ilaahay leeyahay. gooru gaarayay wax suurtagelayay wuxuu qaban doono wuxuu ka ogay ma jirto. marka anigu mid baan waxaan kula talin lahaa aakhiradaada ha gubin. wixii aad hore u samaysay adiga iyo wixii kula midba waar isdaba qabta waan leeyahay isdaba qabta. adduunyada maanta waa arkaysa say socoto. war aakhiradiina u shaqaysta aakhiro cilmi baa joogtaan oo isdaba qabta. intaa mu'aamarad iyo mashaakil dad islaameed ilaahay abuurtay ka shaqaynaysa. waxaan arkay inanka la yiraahdo Yuusuf Shaacir oo huwan haybadii iyo dadnimadii Soomaaliya iyo sharaftii Soomaaliyeed huwan. waa dadka farkutiriska iminka jooga inkastoo nin dhalinyaro yahay. dadkii waaweynaa waan garan waxay ku hadlayaan iminka aad ka yaabaysan ka daragtay.
niman odayo way maahayo sida dhali karo ka kula marmaya maxay ahayd waabtigiste hadduu meheriyadii waa saxde waabtigeede war waxaas dhaqan Soomaaliyeedna maaha diiniyana maaha wax hore u dhici jirayna maaha wax durufikantana maaha meeshan wax kale ku jira haddaad xumaanta ugu heelinaysaan iyo khaladaadka ay ku jiraan nimankan aakhirana idin raaci maayo aakhiro maaha mid idin raaciya idinka idin taalla haddaad xumaanta ku raacaysa iyo khaladka waxay walaalka u heelin hadduu gardaran yahay haddii la gardaran yahay u heelin war xaqdarada hala joojiyo iyo xumaanta la isugu heelinayo baan leeyahay Yuusuf Shaacirna waxaan leeyahay Yuusuf Shaacir halkaa kaga hay wanaaga iyo sharafta ku wad oo ka aamusa runta u sheeg